horseed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي عشرانتي نتحنها هاي نقف البع هلكو جوجو جارسيني عشرانته كبحي دكسية هرسيد رمضان كريم بارد الله هاي بش waxa weeyaan 25 bishii Abriil 2020 maadada xisaabta fasalka 8aad cutubkuna uu yahay ihtimaalka ama probability-ga tusaalaheeni labaad baynu eegaynaa hore waxaan u soo eegnay tusaalaheeni koobaad hay tusaalaheeni wuxuu leeyahay fasalka xisaabta waxa ku jiray 12 wiil iyo 18 gabdhood Mas'uud wuxuu doortay hal arday si xulasho la'aan ah waxa marka si iyagoo isugu dhaxdaadsan uu hal arday doortay si uu uga jawaabo su'aal uu weydiinayay waa maxay ihtimaalka ba'da waxa lagu yiraahdaa waa maxay ihtimaalka in uu doorto gabadh waa maxay ihtimaalka ama suurtagalnimada uu gabadh ku dooran karo taada waa maxay ihtimaalka in uu doorto wiil waa maxay suuragalnimada uu wiil noqon karto qofka uu doortay waa maxay ihtimaalka in uu doorto gabadh ama wiil labadaba waa maxay ihtimaalka ama suurtagalnimada uu ku dooran karo hay su'aasheen mar haday saataas waxaan leenahay dadkeenu haysanaa waxa weeyaan 12 iyo 12 wiil iyo 18 gabdhood marka hore waxaan raadinaynaa wadarta 12 iyo 18 in isu geynina waxaan leenahay waxa weeyaan wadartu 30 arday baynu isku oranaynaa waa 30 arday inta markaynu helo waxaan leenahay aan su'aasheena u nimaadno gabdhuhu waa imisa gabdho gabdhuhu waxa weeyaan 18 inamo ama wiilalaan idhaahdo wiilal iyaguna waxa weeyaan 12 inta markaynu helo su'aasheena bacdaynu ka jawaabaynaa waa maxay ihtimaalka uu ku dooran karo gabadh ama suurtagalnimada uu gabadh ku dooran kara maxay noqonaysaa haye waxaan leenahay waqdaca ama falka uu gabadh ku dooran karo gabadh waxay noqonaysaa imise gabdhuhu meesha ka ahaayeen 18 oo loo qaybiyay intay gabdhuhu meesha ka yihiin baad u qaybinaysaa wadarta guud ee meesha ku taala haye si fudaydi xagga hadda 6 u qaybiso waa 3 hadda xagga 6 u qaybisana waa 5 marka suurtagalnimada uu ku dooran kara waa inta taada waa maxay ihtimaalka uu ku dooran karo wiil waxaan oranayaa marka waqdaca baan oranayaa waqdaca hore inuu soo sheegnay wiil ku dooran karo wiil uu ku dooran kara waxay noqonaysaa wiilashii misay meesha ka yihiin 12 oo loo qaybiyay tirada guudna waa imisa waa 30 xagga haddaad u qaybiso 6 waxa weeyaan 2 xaggan haddaad 6 u qaybsana waxa weeyaan 5 iyadana intaas ku dooran kara wiilkana intaas ku dooran kara baan u jeedaa hay'ada waa maxay ihtimaalka ama suurtagalnimada uu gabadh iyo wiil ku dooran karo labadaba si aad u soo saarto hadaba waqdaca wiil ama gabadh wuxuu kuula mid yahay wiilasha imisu ku dooranay wiilka intuu ku dooranay waxa weeyaan 2 loo qaybiyo 5 haye gabadhana imisu ku dooranay inaan imisu ku dooranay 5 loo qaybiyo 3 loo qaybiyo 5 labadoodaba saag dhigaysayo ama hadii lagu dhaahdo ama waxay u taagan tahay isu geyn soo waxa leedahay waan isu geenayaa dadka noocaas haduu yimaadana labada hoose haday isku mid yihiin mid ka soo qaado labada sareeyana isu geeyo waa 5 haye
isu sii qaybiyo maxay noqonaysaa hal sababtay hal ku soo baxday waa maxay de meesha gabdho iyo wiilal kaliya ta yaalay waxa la yiraahdo ihtimaalkuna hal baa ugu sareyn jiray marka mar hadii aad isu geyso labadaadii qaybood ee aad ku haysatay tusaalaha waa inuu ku soo baxo hal waa inuu ku soo baxo marka imika hadaynu ka jarno inta wiilasha inta gabadh lagu dooran karo hadaynu ka jarno haddana aynu ka sii jarno inta inama lagu dooran karo zero bay soo baxaysaa marka wixii meesha inoo yaalo maadaama aynu isu geynay oo gabdho iyo wiilalaha waa inay hal soo baxdo hadii ilaahay yiraahdo tusaalaha labaad baynu ku sii tusaalaha saddexaad baynu ku sii faahfaahin doonaa insha Allah hadii la yiraahdo 10 ku xigay inta isugu iman doono ardayda fasalka 8aad waxa ay leeyahay Ramadaan Kariim Horseed Schools